wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa xadhigga ka jaray dhismaha cisbitaalka guud ee degmadaasi Garadag munaasabad kooban oo loo qabtay xadhigga jarkaasi oo ay ka soo qayb galeen suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag maamulka degmada Garadag maamulka wasaaradda caafimaadka ee heer degmo Cuqaal waayeel iyo wax ka saraakiil ka socota hay'adda Qadar Charity oo ay wasaaradda caafimaadka iska kaashadeen dhismahani ay dhammaanba mas'uuliyiinta ka soo qayb galeen madashaasi waxay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasaaradda uga mahadceliyeen mashaariicda horumarineed ee fuliyeen degmada Garadag isla markaana waxay sheegeen baahida weyn ee dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag u qabeen isbitaalkaasi waxaan u hambaleynayaa number 1 wasaaradda horumarinta caafimaadka oo maanta baahi weyn oo loo qabo degmada Garadag isbitaal lahayn oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi uu noo hirgeliyay isbitaalka waxaan u sheegayaa deegaamada hoos yimaada degmada Garadag sida tuulooyinka oo baahi weyn u qabay inay ka soo qayb galaan adeeg kasta way ka helayaan oo qaarkeed ay yihiin gobolka Togdheer qaarkeedna ay yihiin Sanaag isbitaalkan waxa qayb weyn ka qaatay dhismihiisa Qadar Charity iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka qalabeyntiisana waxa lahayd wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo qurba joog deegaanka waxaan rajeynayaa isbitaalkan insha Allah biidnillaahi al-kariim inuu dabooli doono baahida caafimaad waa maalin qiimo weyn ka hay'adahan anigoo ku hadlay afka hay'adda Qadar Charity noo ah inay suuragal tahay oo aan maanta wareejinayno noo suurowday ilaahay idankii inaan wareejino dhismahan quruxda badan ee qiimaha weyn ugu fadhiya degmada iyo gobolka iyo jamhuuriyadda Somaliland oo aan ku wareejino wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir Xasan Maxamed Cali Gaafadhi farxad weyn bay noo tahay mana aha markii ugu horeysay ee aanu dhismahan oo kale jamhuuriyadda ka fulino dhismayaal badan oo caafimaad ayaanu ka sameynay oo ay ka mid tahay tii Gowsaweyne tii Waridaad tii bixin hadda wasiirku soo furay waxaan joognaa xafladuna hadalkeedu iska kooban yahay runtii hadaan nahay xubnaha golaha deegaanka iyo bulshada reer Garadagba maanta farxad weyn bay noo tahay in loo daafuro mashruuca balaaran ee ah isbitaalka oo baahi weyn aan u qabnay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhamaystirka iyo qalabaynta waan uga mahadcelinaynaa dadkan lagu furayo daafurka isbitaalka degmada Garadag ee uu furayo wasiirka horumarinta caafimaadka Mr. Xasan Maxamed Cali iyo wafdigiisa waan u mahadinaynaa horta marka hore horumarka kan u soo kordhay degmada waxaan ku soo dhaweynaynaa sababihii uu ku yimi oo wasiirku ka mid ahaa waxaan leenahay ku soo dhawo wasiir horumarkan degmada maanta ka muuqda aad sababta u tahay waana degmada Garadag maanta waxay ka ciilbeeshay xaaladda caafimaadka waxaan kale oo soo dhaweynaynaa daafurka cusub ee dhakhtarka guud ee Garadag ee maqnaa muddada dheer ee yimi ee ay ku guuleysatay wasaaradda horumarinta caafimaadka hoggaan uu ka yahay wasiirka caafimaadka Xasan Maxamed Cali isagoo oo runtii dadaal badan soo geliyay iyo maskax badan saakana wuxuu ku guuleystay inuu furo si uu ugu shaqeeyo degmada iyo baahidii loo qabay ay u qabsoonto taana annaguna waan soo dhaweynaynaa degmo ahaanna waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada furitaankaasna bukaankii badnaa iyo mushkiladii faraha badnayd ee Hargeysa soo joogtay waa nasiib wanaag inay timi maanta Garadag mahad ilaahay ka soo maanta halkan suuqan keenay oo inaynu furno isbitaalka degmada Garadag kaasoo sidoo sheegay agaasimuhu uu buuxin doono qaybo badan oo kamid ah caafimaadkii waxyaabaha laga rabay in caafimaadku buuxiyo sida hooyada iyo dhalaanka waxa kale oo la sameyn doonaa halkan uu leeyahay oo dhameystiran shaqa qaybtii shaybaadhka waxa kale iyaduna diyaar qaybtii lagu qaliyay hooyada iyo ilmaheeda hooyada uurka sidata waxa kale oo leedahay qaybihii kale oo dhan ee isbitaal u lahaa waxa halkan iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo qadar hay'adda qadar aan halkan farxad weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland furitaanka isbitaalka Garadag oo ka kooban laba qaybood qaybna ay hirgelisay Qadar Charity qaybna wasaaradda caafimaadku dhammaan ay ku amaanan tahay wasaaradda caafimaadka
oo hormuud u yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay saacada wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baahida weyn ee deegaanka ka taalay ee aad naga dabooshay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa maanta kulankeenu wuxuu daaran yahay furitaanka hospitalkii Garadag oo muddo door aad filayseen xilli ma la furaya maanta bay noqotay in la furo runtii Garadag waxay u baahnayd hospitalkan cid kasta oo gacan ka geysatay ugu horeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali iyo qadar charity ba marka koobaad handaqa koobaad iyaga leh hadii aan wasiirku aragtidan lahayn in Garadag ay yeelato hospital maanta heerkan uu soo gaareen mudane wasiir hospitalkanu wuxuu ka kooban yahay dhammaan qaybihii hospital lahaa oo ay kamid yihiin male medical ward iyo female medical ward oo ah xumadii ragga iyo tii dumarka pediatric ward caruurta obstetric ward dumarka iyo xaalada intay uurka leeyihiin la soo dirsa runtii waxa kale oo jooga oo hadda halkan ku sugan dhaqaatiradii qalliinka u sameyn lahayd hooyo kasta oo ku dhibaataysanayd oo aad u qaadi jeen cirgaabo ama burco in maanta Garadag dhexdeeda lagu qalo oo iyada iyo OT-gi iyada iyo shaqaalihii la shaqeyn lahaa oo suuxiyuu ka mid yahayna ay diyaar idin ku yihiin in maanta cusbitaalkii degmada Garadag la furay oo runtii uu u shaqeynayo si toos ah waxaanu mahadda uga celinaynaa marka wad Ilaahay marka labaad waxaanu mahad celinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo u sii mahad celinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo runtii isna hirgeliyay kana shaqaysiiyay cusbitaalkan in doorana ay degmadu ku taamaysay oo isna maanta halkan inala jooga waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow degmadii oo aad hamigii aad ku hamiyeysay runtii maanta uu hirgalay waxaan leenahay wasiir waad mahadsantahay bacda mahad kullay qof waliba wixii uu gashado degmadan buu ka helayaa waa asad sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi gabagabadii la hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag ayaa kula dardaarmay inay ilaashadaan isbitaalkaasi hadalku daw iska gabagabo intii la oran lahaana waa la yiri inaynu maanta uun birayno oo aynu xariga uga jarno oo u xalaalayno inuu ahaado hospital maanta furan oo shaqeynaya ayuun baynu maanta xafladan ay tahay ujeedadeedu runtii waa hospital aad iyo aad qiimo badan maanta ku filan adeega looga baahan yahay waa hospital ay isugu tageen wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adda Qadar Foundation qaybta hore iyo qaybtani haday qalab tahay iyo haday dhismo tahay waxa iskaashi ballaaran ka sameeyay wasaaradda iyo hay'adda Qadar Charity waxa magaalada ka muuqda koritaan ballaaran iyo population-kii oo koraya taasuna waxa ay keentay in loo sii fikiro mustaqbalka waxa ay u baahan tahay Madar Sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag